dalka Morocco ayaa waxaa lagu arkay wiil yar oo 2 sano iyo xoogaa jira oo kor ka xafidsan Quraanka Kariimka. Wiilkan yar ayaa la sheegay marka uu fartiisa taabsiyo kitaabka Quraanka Kariimka oo akhrin karo aayad walba oo ku jirta Quraanka Kariimka. waxaana la sheegay inuu akhrin karo oo kaliya kitaabka Quraanka uusan akhrin karin qoraallo kale. waa kan wiilka yar oo Quraanka akhrinaya. Allah wattaqullah lamu anna Allah sa'adatu iqab قائل المدثر يا أيها المدثر فأنذر قم فأنذر ربك فكبر وربك فكبر ثيابك الطريق الأرض ولا في السماء والذي سويت كيف يشاء بارك الله فيك كيف يشاء لا إله وعصيت حكيم هو عزيز الحكيم. سورة الإخلاص هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. kan yar ayaa wuxuu leeyahay calaamad la yaab leh. farta suulka agtiisa ka soo baxday ayaa tilmaamaysa kelimada Allah. hooyadiisa oo weydiisatay dhakhtarada inay ka jaraan ayaa dhakhtarku u sheegay inaysan micno sameeyay ay soo baxayso asbuucyo kadib. iyada dhashay Yaxya ayaa sheegtay inay arrinkan ku aragtay wiilkeeda maraan sii fogeyn. waxayna sheegtay habeenada ka mid ah iyagoo telefisyoonka fiirsanaya oo markii ay ku baraarugtay wiilkeeda oo Quraanka la akhriyay wadaad Quraanka ka akhrinayay telefishinka. arrinkan oo cabsi gelisay. waxayna sheegtay inay arrinkan la yaabtay oo una bandhigtay wadaadada ayna markii dambe ugu micneeyeen in wiilkeedu yahay mucjiso ka mid ah aayaadka Ilaahay una ka soo muujiyo makhluuqaadkiisa cid uu raboodo. والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضع شوف خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان يا يحيى خذ الكتاب بقوة.